السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. cuntooyin iyo cabitaan aanay habboonayn inaad isticmaasho xilliga aad isu diyaarinayso hurdada. Shaaha, gaar ahaan bunku, iyadoo bunku uu kordhiyo xaddiga garaaca wadnaha, isla markaana shaahu uu jidhka siiyo firfircooni dheeraada, ayaanay habboonayn inaad isticmaasho xilliga aad isu diyaarinayso hurdada. Hilibka cas, iyadoo aynu ognahay in hilibka casi uu leeyahay dufan iyo borotiin fara badan, ayaanay fiicnayn inaad isticmaasho xilliga hurdada maadaama jidhkaagu iyo dheefshiidkaagu aanu helahayn waqti ku filan oo uu ku burburiyo kagana shaqaysiiyo dheefshiidka si uu jidhka ula falgeliyo borotiinka iyo subaga faraha badan ee uu leeyahay hilibka casi. Boorashka, iyadoo boorashka lagula taliyo dadku inay subaxdii isticmaalaan xilliga quraacda, faa'iidooyin fara badan laga helo, isla markaana ay boorashka ka buuxaan maadooyin la dagaalama subaga, ayaa haddana waxa laga digay qofku inuu isticmaalo boorashka xilliga uu hurdada isu diyaarinayo, isagoo ku keeni kara qofka dibiro fara badan. Cabitaanka biyo badan ee xilliga uu qofku aadayo sariirta, iyadoo biyuhu muhiimad weyn ay u leeyihiin jidhkeena, ayaanay haddana fiicnayn qofku inuu biyo badan isticmaalo xilliga uu isu diyaarinayo hurdada. Biyaha badan ee uu qofku cabo xilliga hurdada waxay ku keeni karaan inay kaliyaha qofku isku dayaan inay si xawliya u shaqeeyaan isagoo qofka hurda. Sidaas oo kalena biyuhu waxay sababi karaan inuu qofku saacado badan kasoo tooso hurdada oo ku noqnoqdo xamaamka, taasoo meesha ka saari karta raaxadii hurdada.